waxa jira waxa yiraahdaan wasaa'il taxakum qaabkay u maamulaan dunidatan iyagu intii tamartooda dunida rabba maamula subhanahu wa ta'ala laakiin iyagu itaalkooda iyo xoogooda siday u maamulaan mar labaad hadaan ku noqono aqoonyahankaasi istiraatiijiga professor Abdullah Nafisi wuxuu leeyahay wasaa'il arba'a ayay dunida ku xukumaan afar shay ba kaligood gacantooda ku jira ama inteeda ugu badan ay ku jiraan afarta xadhig ayay dunida ku hogaamiyaan xadhiga koowaad waa silaax hubka dunida hubka ugu badan iyaga soo saara warshadaha ugu waaweyn hubkana iyaga leh suuqa baa mushtari hubka ugu tirada badan lana iyaga leh dani waxay ugu jirtaa in dunida dagaal ka socdaan dunida wada nabadi faa'iido badan ugu ma jirto haddana maadaama iyagu hubka u hayaan waxay isku dayaan inay xukumaan goorma la dagaalami karaa goorma se dagaal ku dhamaanaya yaa guulaysanaya yaan se guulaysanaynin yaa hub la siinaya yaan se la siinaynin yaa hubka laga iibinaya ku dagaal galaya yaa isbeer baadka hubka laga haynayo diyaarada khaliye dabaabada shaqeyneen haysanaya dunidu qaabkay u dagaalanto inta ugu badan waxay isku dayeen inay gacanta ku hayaan xuduudda cidda ka soo gudubtana waxa la isku dayaa in la cuno qabateeyo ama la dilo ama aanay suurto gelin oo hubka chemicalka dunida lagama ogola iyagu saway haysanayaan hubka nuclearka dunida lagama ogola iyagu saway haysanayaan hubka caynkana lama ogola iyagu saway haysanayaan waayo iyagu waa labi ruuxi bay soo arkaan waa dadkii mas'uulka ahaa idinkuna waxa tiin غير mas'uulki marka alwisaya calaykum waa in la idin taliya inta garaadkiinu korayo qadiyada labaad ay dunida ku maamulaan waa masalada loo yaqaano al-khamat the resources gacantooda waxa ku jira labada khaamo ee ugu weyn dunida waa waxa shidaalka la yiraahdo shidaalku waxa gacanta ku haya hal shirkad weyn oo Mareykan oo la kala burburiyay Standard Oil shirkad la yiraahdo jiray Rockefeller nin la yiraahdo oo lahaan jiray oo dawladda Mareykan ay aragtay xooggeedu inuu xad dhaafay oo dawladdu lafaheedaba uga baqatay oo dabeetana maxkamadooda sare ay ku xukuntay in 7 shirkadood laga dhigo dabeetana shirkadaha caalamiga ah dad taqaanin waa the Seven Sisters ka waxa la yiraahdaa waa Standard Oil oo la kala jajabiyay the Seven Sisters shirkadaha loo yaqaano oo Mareykanku leeyahay ayaa dunida shidaalka sahamiya oo soo saara oo rara oo suuq geeya oo safeeya dad kale shidaalka midalan carabta kale iyo wixii la halmaala waxay ka helaan inta la cuno inta budgetka dawladda حتى investment وين حقوده نقضه ولا داس لعقته وحيد هذا يجاك تدوين لقو invest كريه الشيطان كمرك الله يراد ضد كنت بدن وحيو فهمان كان لقو شبان قواعد دينويه ما هو كبدني الشيطان كان سيدير يلا باطن ايتم ودنيا وحقوه وين الاستعمال على لقى صوصاره واحد دنيا الدوله السمايه انت وقو بدن شيطان بلقى صوصاره واحد نر لحده بوليسترز انت ugu badan shidaal baa laga soo saara waxa wax lagu nadiifiyaa ama wax lagu meeraa ama detergent iska leeyahay shidaal baa laga soo saara waxa fertilizer iska leeyahay beeraha lagu shubo shidaal baa laga soo saara waxa pesticide iska leeyahay beeraha lagu buufiyo shidaal baa laga soo saara bal qalabkani hor yaala hadda waxa laga yaabaa caag iyo waxa kale inuu ka sameeyay ama computerkan horteeda yaala caagag iyo qoraaday waxaanu ka sameeyay waxaanu dhan shidaal baa laga keenaa يعني سيدي يلا باتنا ايتم باي برودكت كا بدن شدالك عادي لا يقانو لك شدالك الدنيا غعنتا كو هيا معناه waxa weeyaan dhaqaalihi ugu badnaaye dunida iyo wax soo saarkeeda iyo resource-keedii ayuu gacanta ku hayaa
walaga yaabaa maanta Mareykan iyo kuwaas shidaalka carabta inay ka maarmi karaan maadaama ay kii xajariga ha bilaabeen laakiin ma rabaan inay ka maarmaan oo dunida ugu taliyaan China shidaalku qaadanaya Japan shidaalka qaadanaysa dunida technology-ga wadata waxay qaadanayso waa inuu iyagu taliyaan shayga afraad ay dunida ugu taliyaan waa waxa loo yaqaan sharciyya duwaliya dunida waxay u sheegeen in United Nation laga mid noqdo United Nation waxay yiraahdeen annagu qaanuunka ay uga socda veto-ga iyaga socda iyaga ninka mid ah hadlayo wuxuu leeyahay mujtamac duwaligi wuxuu arkaa duwalkiinaasi inay maariqiin tihiin ama ka baxdeen xuduudii bini'aadamtinimada wixii dadka kale ka yimaado waa veto wixii masaalixdiisa ka hor yimaado waa veto wixii uu rabaana waa inay fulaan والقانون الدولي وحلا ما الشرعية الدولية يوقع وجرتها قضب كافراد يدون لكم معمولان وحويانا ثقافة ووحن ميديا لغة المامر دمانتي هدو تي في هدو الراديو هدو انترنت هاي هدو جرائد هاي هدو مجلات هاي هدو فيلم هاي وحاس برودكت كوغو بدن الدنيا دو ايدي ستا ما داوتا ما عرقتا يغا صوصارا وwaxa loo yaqaan jaamacaadka oo iyaga hogaamiya oo culture-ka western-ka ay dhigaan waxa loo yaqaan yaani soft power-ka waxay yiraahdaan oo dhan alquwa naa'ima awood aan namarna ku geysanin waxna kaaga tageen bay yiraahdaan alquwa naa'ima waa lagu dili karaa iyadoo aan wax dhiiga ka daadanin idan haddaad rabto dunida inaad eegto siday u socotaa waxaad u baahan tahay 4 qodob inaad aragto waxa inta la socdo baynu leenahay oo dhanka kala ah haddaad quwada aragtay ma niqaat dhacfina waa jira waxaan leenahay ninka cad iyo Mareykan iyo European tadaba socota civilization-koodii xadaaradooda declination ma ku socda qiimadii way gaadheen foorarkay bilaabeen iyagu waxay ku dadaalayaan foorarku inaanu slope noqon aad steep mid aad u dheereeya inaanu noqonin mid sidaas aynu noqdo cala aqal qurun socon kara kow waxa burburay waxay u yaqaaneen values alqiyam wal akhlaaq dunida waa dhaway surwaalka jeaniska iyo xorriyadu isku macnay haayeen Coca-Cola iyo cadaaladu isku aragti bay haayeen yani waxa loo arkayay umamka dunida xorriyada ugu yeedhaya dadku inuu xor noqdo umamka dunida cadaalada u hogaaminaya ee dadka ugu yeedhaya in cadaalad bini'aadamtinimadu ku dhaqanto inuu yahay reer galbeedka غزو فكريه ay bashariyada ku sameeyeen waxana loo arkayay inay maxay waxa soo dhan iyagu hogaaminayaan haatanse aragtidii dunida masalada ku saabsanayd way isbedeshay dhacdooyin dhacay daraadeed xabsiga Abu Ghuraib loo oran jiray Guantanamo wixii ka dhacay Afghanistan iyo Iraq wixii ka yimi waxay abuureen in bashariyada dunida ay fahamto حرية عدالة سيدي لمودة ينانا يهين values كي أول وسترن كالله يستينوا value إلاليو القيم إنو إلاليو ينانا يهين هبوط القيم بايمي وحكا الله كصاب بيري رقالة بربر دوني دا يمي وقت شركات كي هو وينا دوني دا ينبضان وكم مدينة كعضي بانان كي هو وينا دوني دا ينبضان كعان maxaa la yiraahdaa dawladihii waaweynaa sida Mareykanka oo kale trillions deynaynu ku jiro dhaqaale burbur aad u culus baa dunida ka dhacay dhowrkii sanadood ugu dambeeyay ay suurtoobi weyday cajsiga duwalka ku jira dhaqaalahooda in la dabooli karo oo sanad walba dawladdu trillions deyna ay qaadanayso waxa kale oo isbedelo dunida ogaatay Rumsfeld iyo groupkiisii markay wax weerarayeen waxay qaateen aragti oranaysa hubka ugu badan iyo xoogga ugu badan aan ku garaacno meelahaynu weerarayno askari badan iyo inaan gelinin laakiin wax dhaqaaqa weyn la waayaa inuu dhulka la sinna
taasi waxay keensanaysaa bay leeyihiin dunida inta kale inaynu farta ugu yeedhno iyana may suurtoobina cagsigay noqoto hubkii ugu badnaa baa la isticmaalay dhaqaalii ugu badnaa baa la isticmaalay afghanistan 45 dowladood baa dagaalkeeda ka qayb galay hub wixii dunida la hayay waan ahayn kuwa nuclear iyo baabka lagu sheegaan ahayn baa lagu isticmaalay ومع ذلك waxa cadaatay shucuubtu haday musir tahay mu'minna tahay inaanay jabin waxa maanta ogolaadeen ama la raadcaynaya Taliban iyo gurbada la mid ah in la galo heshiis iyo wada hadal in la sameeyo ama waxay gaadhay xad Obama waafkiisa ka yiraahdo healthcare ka iiga muhiimsan inaan dagaal kala cusub galo يعني قضايا كي دقالات داخلية health care أي كم مهم سبولي إن ما أنت دقال كلا قاضو أركتيها سوى أركتيها يشيء يندك أقويها الندى بابكم تخصصي لكن تا معنى هيدو معها إن يقعنت وذا كبح ضي قيادة العالم معها وين ديكلاريشنون بلا مي معنى هذا معها إن دوني فرهو ده لقى مروتشيو أي كبحضي still they have the power ولي يقطع لنا إياه محا حل أمريكا دنك كلام أمريكا ينوقع عنه عالم الإسلام الدول كي كتشري حين نقوم وين دول دقق قنعية الشعوب تودا دولة ده وحا الله يراهدو والله بشي بالغو قيمية وحنا الدولة ده وحا لغو قيمية المشروعية والإنجازات بين هذا دولة ده وحا لغو قيمية إني شرعيتي إني قانونيتي إني بلشاد واركتي إني دولة ديديتي دادكو دادوينها يحكمتا إني الرالي كيين ووار كيان وحا ييغو سمايستان إني تهي